shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay mooshin kala laabasho ah oo guddoomiyaha golaha shacabka laga keenay mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari annagoo matalayna runtii aqlabiyaddii golaha shacabka ayaa waxaynu ku keenay si waafaqsan dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha shacabka mooshinkaasoo inoo oggolaanayo runtii sharciga aynu ku dhaqanno sidaa daraaddeed waxaa inoo faahfaahin doona nuxurka mooshinka wuxuu yahay waxaa akhrin doona ilaahay hadduu yidhaahdo walaalkeenna brofesor cabdullaahi sheekh ismaaciil marka asagaan ku wareejinayaa waa mahadsantiin marka aan bayaankan ama mooshinkan akhrinayno waxaan rabaa in loo fahmo inaanan ahayn dad wax duminaya waxaan ula jeednaa wax dhisid baan ula jeednaa hay-adaha dowladda muddababa waa isa saxaan haddii wax xaqadaan haddii waxa coryaamaan haddii waxa ay jiitamaan haddii waxa ay dhaqaaqi waayaan waa caadi in tallaabo saxitaan ah la qaado maanta waxaan ku jirnaa tallaabadaas saxitaanka ayaan ku jirnaa cid aan si gaar ah u bacsanayn ma jirto cid aan colaad u hayno ma jirto laakiin waxaan abbaaraynaa arrinta meesha taagan iyo sidii looga gudbi lahaa carabtu waxay tidhaahdaa alikhtilaafu fi lwuddi laa yufsidu shay-an alikhtilaafu fi lwuddi laa yufsidu fi lqadiyati shay-a kala aragti duwanaanshaha ama iskhilaafka waxba uma dhimaayo kalgaceylka dadka ka dhaxeeya ereygaasna waxaan ula jeedo waa garan kartaan marka aan ka socdo haddana waxaan idiin akhrinayaa mooshinka ayaan idiin akhrinayaa si aad u gaadhsiisaan qalabka warbaahinta bulshada soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan ilaahay ka rajaynaya ka bacdi in tallaabadan ka gadaal aan waxa aan higsanayno oo wanaag ah oo aan rabno baarlamaanka arrimihiisa inaan ku saxno in iyadana ilaahay uuna waafajiyo bismi illaahi araxmaan araxiim warqaddan waxay ku socotaa koow guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane cabdi weli ibraahim sheekh muudey ujeeddadu waxaa weeye mooshin kalsooni kala noqosho guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari annagoo ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ee magacyadooda iyo saxiixdooda halkan ku lifaaqan yihiin waxaan halkan ugu soo gudbinaynaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka soo jeedin waa mooshin baa loola jeedaa kalsooni kala noqosho guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari guddoomiyaha golaha shacabka wuxuu muddadii uu hayay xilka golaha shacabka baarlamaanka tobanaad ku kacay falal liddi ku ah dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha shacabka oo ay ka mid yihiin ragaadinta geedi socodka dib u eegista dastuurka oo asaasi u ah
dib u eegidda qarannimada Soomaaliyeed. 2 wuxuu si joogto ah u hareermaraa ama marayayba ku dhaqanka xeer hoosaadka golaha shacabka. 3 wuxuu si toos ah iyo si dadbanba ugu xadgudbaa ama ugu xadgudbaayayba hannaanka dimuqraadinimo ee howlaha baarlamaanka uu ku soconayo. 4 sidoo kale wuxuu guddoomiyuhu ku kacay falal ay ka mid yihiin ku takrifal awoodeed, caburin aragtida xubnaha golaha xilliga doodaha kulul lagu jiro ee masiiriga ah, been abuurid go'aanada baarlamaanka, musuqmaasuq, eex iyo nin jeclaysi. waxaa kaloo intaas raacsan isdabamarin mooshinno sharci ahaan loogu gudbiyey oo uusan u soo bandhigin baarlamaanka. 5 wuxuu ku fashilmay inuu dhammaystiro qaab dhismeedka guddiyada baarlamaanka, gaar ahaan guddiga adeega baarlamaanka oo ah guddiga u qaabilsan howlaha baarlamaanka. guddoomiyaha golaha shacabka wuxuu jebiyey qodobka 111 xarafka da ee dastuurka iyo qodobka 10aad ee xeer hoosaadka golaha shacabka. haddaba annagoo cuskanayna qodobka 65aad faqradiisa 4aad ee dastuurka iyo qodobka 9aad faqradiisa 1aad xarafkiisa da, isla qodobka 9aad faqradiisa 5aad ee xeer hoosaadka golaha shacabka, waxaanu soo jeedinaynaa in xubnaha golaha shacabka ay kalsoonida kala noqdaan guddoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari. wabilaahi towfiiq. walaalkay warqadda uu akhriyey ee aan u gudbinnay guddoonka baarlamaanka, guddoomiye ku-xigeenka koowaad. awalan waxaan rabbiga subxaanahu watacaala aan ka baryayaa inuu ku asturo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aan u gudbinnay mooshinkaas sida xaqa ah. waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka iyo bahda saxaafaddaba aan u sheego, sida aad la socotiinba maalin dhoweeto waxaa baarlamaanka u gaaray go'aan masiiri ah. go'aankaas masiiriga ah cabdulaahi sheekh iyo xildhibaano ay ka mid yihiin aniga iyo xildhibaano kaleba kalfadhigan ka horreeyay ayaan waxaan u gudbinnay mooshin aan uga hadlayno masayrka ummadda Soomaaliyeed iyo khayraadkeeda, khaasatan badda Berbera. maanta meelaas ku dambeeya cid sheegi karta ma laha. waxaan oo keliya aan aragnay iyadoo daaqilka dalka ay kambaniyaal iska durduurinayaan. guddoomiyuhu sida loogu eedeeyay cadaalad darrada, keliya waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan idhaahdo waxaa muhiim ah baarlamaanka Soomaaliyeed inaasna noqonin baarlamaan qof uu leeyahay, baarlamaan shacabka Soomaaliyeed matala inuu ahaado. guddoomiye jawaari guddoomiye 2 mar aan dooranay ayuu ahaa, xildhibaanada ka mid ah ayuu ahaa. uma aan dooran in 275 kuwa iyaga isaga uu leeyahay ay noqdaan. masayrkii baarlamaanka iyo shacabkii aan matalayni aan ku bedelanno in qof aan iska daba taagnaano.
waxa aan maanta ugu keenay mooshinka waxaa sabab u ah baarlamaanka wuu hagi waayey. walaalkeen waa xildhibaan sharaf leh, laakiin baarlamaanka wuu hagi waayey. taas ayaan dooranay 108 xildhibaan inay isku qanciyaan in baarlamaanka muxuu ahaa waaba ka badan tahay sida hadda xildhibaanada ii sheegeen qaar badanna geeyey, laakiin runtii inay xildhibaano intaas leeg ay isku qanciyaan in muxuu ahaa gudoomiyaha uu hagi waayo baarlamaanka runtii waxa waaye waa wax muuqdo oo shacabka Soomaaliyeed u muuqdo. waxaan rabnaa baarlamaanka Soomaaliyeed inuu noqdo baarlamaan shacabka ay leeyihiin ma rabna baarlamaan qof uu leeyahay inuu ahaado. waxaad la socotiin gudoomiye Jawaari waxaa muxuu ahaa baarlamaankii 9aad ayuu hogaaminayay. guriga baarlamaanka waad aragteen qaab darrada iyo sida uu yahay. waxaas oo dhanba wax looma waynina maamul xumo iyo takrifal ayaa sabab u ah inuu dhismi waayo golihii baarlamaanka, inuu muxuu ahaa guriga ummadda Soomaaliyeed looga shaqeynayo qaabkaas oo ahaado. waxaas oo dhan wuxuu asaga mas'uuliyaddeeda leeyahay waaye. waxa aan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inaynu u fahmin xildhibaanada maanta keenay inay xildhibaano oo muxuu ahaa sidii ay awalba shacabka ka caban jireen aynu u fahmin oo ay u fahmaan oo kaliya in xaqii maanta Ilaahay uu waafajiyay xildhibaanada ka keenay gudoomiyihii muxuu ahaa Jawaari. waxaa muhiim ah marka xildhibaanada saaxiibadayna ka maqan muxuu ahaa qoraalkaas inay nagu raacaan shacabka Soomaaliyeed iyo shuruucdooda sidaan u xafidno oo aan u badbaadino. waxaa muhiim ah inaan isku raacno. waa ognahay xildhibaanadu muxuu ahaa hal meel iskuma raacaan, adduunyada dhammayna ka jirtaa, laakiin sida nagala rabo inaan gudubno waajibaadkiina saaraa muxuu ahaa naga saaraa ummadda Soomaaliyeed naga saaraa sidii maalin dhaweetaba aan u gudubni. waxaa muhiim ah in muxuu ahaa xildhibaanada Soomaaliyeed kii maqana uu yimaado, kii muxuu ahaa joogana uusan dalka ka bixin ilaa aan xalka guud ka gaarno. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waa un signagrayn waxaana iiga aadan warqadii waa la idiin qori waana la idiin qaybinayaa insha Allah.